Nafaqooyinka aasaasiga ah ee lafaha caafimaadka qaba waxay u baahan yihiin essential nutrients needed for healthy bones. In aad cunto isku dheellitiran aadna ka taxadartahay caafimaadka lafahaaga waa lagama maarmaan. Nafaqooyin badan ayaa door lixaad leh ku leh amaba ka ciyaara caafimaadka lafaha, sida kaalshiyamka, faytamiin D-ga, magnesiumka, fosfooraska, potassiumka, iyo borotiinnada kala duwan. Haddii aad cunto caafimaad leh oo ay ku badan yihiin khudradda noocyadeeda kala duwan fruits and vegetables, digirta qaybaheeda kala duwan, miraha, iyo hilibka ay dufanku ku yar yihiin oo ah il aan ka helno borotiinska aan dufanka lahayn ee loo yaqaan lean proteins. Haddii ay cuntadaadu intaas ka kooban tahay, waxa uu jirkaaga helayaa nafaqo ku filan in la joogteeyo caafimaadka lafaha iyo in ay si wanaagsan u gutaan shaqadooda. Balse marka aan sii weynaano, da'deennuna ay kororto, waxaa loo baahan yahay dadaal dheeri ah si aan u xaqiijino in aan qaadano nafaqo ku filan in lafaheenna sii ahaadaan kuwo caafimaad qaba. Kaalshiyamku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay lafaheennu ka samaysan yihiin, wuxuuna muhiim u yahay unugyada, murqaha, wadnaha, iyo shaqada neerfaha. Sidaas oo ay tahayna, jirkeennu ma awoodo in uu samaysto kaalshiyam, waxaanse ka helnaa cuntada ama waxaan u qaadanaa daawo ahaan markii uu cuntadeennu ku yaryahay ama supplement. Marka aysan cuntadeennu ka koobnayn xaddi kaalshiyam ah oo nagu filan, waxaa jirkeennu uu ku qasbanaadaa in uu ka soo xoqto lafaha, taasi oo keenaysa in lafaheennu noqdaan kuwo jilicsan oo halis ugu jiro jabid. Qanjirka loo yaqaano parathyroid gland ayaa fariin u dira unugyada lagu magacaabo osteoclastos si ay uga soo xoqaan lafaha kaalshiyam, loona joogteeyo xaddiga normalka ah ee laga rabo in uu dhiiggu ku jiro. Xaddiga kaalshiyamka ah ee qofka laga rabo in uu maalintii qaato the recommended dietary allowance (RDA) of the calcium waa 1000 haddii aad tahay qof raga, haddii aad tahay qof dumarana waa 1200 oo milligaraam maalinkii. Cuntooyinka qaniga ku ah kaalshiyamka waxaa ka mid ah caanaha, farmaajada, lowska, digirta, khudaarta cagaaran, iyo cunnooyinka badda laga helo sida malayga noocyadiisa kala duwan. Haddii aysan cuntadaadu ka koobnayn in kugu filan oo kaalshiyam ah, waa in aad qaadataa supplements ama xaddi dheeri ah oo daawo ahaan ah. Si aad u gaarsiiso xaddiga loogu talagalay in aad maalinkii qaadato RDA goal, balse waa in aadan qaadan xaddi zaa'id ah, waayo cilmi-baarisyo la sameeyay qaarkood ayaa muujinaya in qaadashada xaddi zaa'id ah oo kaalshiyam ah uu siyaadin karo halista uu qofku ugu jiro inay kelyihiisu ku samaysmaan dhagaxyo iyo wadne xanuun. Waxaa sidoo kale muhiim ah isagana faytamiin D. Faytamiin D-gu waxa uu muhiimad weyn u leeyahay dhowr ka mid ah hab-dhismeedyada jirkeena oo ay lafuhu ugu horreeyaan. Waxa uuna ka caawiyaa jirkeena in la soo nuugo kaalshiyamka lagana soo nuugo mindhicirrada si loogu daro qulqulka dhiigga. Faytamiin D-gu waxa uu qayb ka yahay hannaanka lagu koontaroolo heerka kaalshiyamka iyo fosfooraska dhiigga ku jira. Faytamiin D-gu ma ahan sida kaalshiyamka oo kale oo jirkeenna ayaa samaysta kadib marka iftiinka cadceedda ama qorraxda uu u beddelo walxo kiimikaaleed oo maqaarkeena ku jira faytamiin D qaam ah amaba inactive vitamin D, kadibna jirkeena ayaa ka dhiga active vitamin D. Balse waad qaadan kartaa vitamin D supplement dadka waaweyn ee aan xanuunsanayn oo aanan qabin cudurka lafaha khafiifka ka dhiga ee loo yaqaan osteoporosis-ka. Waxa ay qaadanayaan 600 ilaa 800 oo international units ah maalinkii. Haddii uu qofku cudurkaas qabana, waxa uu qaadanayaa 1500 ilaa 2000 oo international units ah per day. Si aad u xaqiijiso in lafahaagu noqdaan kuwo caafimaad qaba, kaliya ma ahan in aad qaadatid cunto isu dheellitiran, balse waa in aad ku dadaashaa caafimaadkaaga guud, samaysana jimicsi kugu filan. Intaas ayaan kusoo koobaynaa muuqaalkeennii maanta. Mahadsanidin.